Olaha nadaafadda ee ay u qoondeysay xukuumadda Somaliland 45 cisho mar in la qabto ayaa markii saddexaad maanta isagu ka bilaabmay magaalooyinka waaweyn ee Somaliland waxa maanta si gaar ah isagu uga dhex muuqday ololahaasi nadaafadda iskaashatada basaska oo nasiimo loo yaqaano magacooda iskaashatada basaska ayaa maanta waxay arintaasi uga faa'iideysteen qashinka in ay ka guraan isla markaasina ay nadiifiyaan wadooyin ay daadadku googooyeen ayna u sameeyaan markaasi meelo cusub oo ay magaaladu markaasi basaska ka soo raaci karto isla markaasina ay geyn karaan Xuseen Cabdiraxmaan Ibraahin oo ah gudoomiyaha iskaashatada nasiimo ee basaska ka dhex shaqeeya magaalada Boorama ayaa isagoo arrimahaasi ka hadlaya waxa uu yiri wadadii afraad baan jeclahay ee magaalada hadda la furayo iyadoo ay ka shaqeyno Sheekh Usmaan Sheekh Ali Jawhar Kuwait wada kale oo iyadna halka marto oo sifta marta fooqa Xaam Jibriil hortiisa oo anaga ilaa iyo xiriirta ku dhacda dheer waxaan bilaabnay maanta shaqadeedii jidka nadiifintii baan maanta bilownay marka insha Allah bariya sahan damana nadiifinta ayna ku jirno ayaan isku wadnaa hadii Ilaahay yiraahdo wixii ka dambeeya 3 cashana baabuurta insha Allah way maraysaa hadii Ilaahay sidoo kale waxa isaguna halkaasi ka hadlay Cabdiraxmaan Muuse oo isagu markaasi iskaashatadaasi xubnaheeda sarsare kamid ah waxa sidoo kale dadkii iyagu markaasi xaafadda Sheedeer la yiraahdo oo koonfurta magaalada Boorama ku taala ay kaamirada telefishinka Universal ka wareysatay bal sida ay u arkaan in ay helaan gaadiidka dadweynaha adeegooda oo agtooda markaasi soo gaara waxaanay dadkaasi sheegeen iyagoo arrimahaasi ka hadlaya waxaan dadkii dumarkii xaafadda ah aad iyo aad baan ugu faraxsanahay dadka hawsha haya waan ku gacansiinayna wad mahadsantiin marka horeysa mar labaadkana aad iyo aad baan ugu faraxsanahay basaska aad noo keentay jidka aad noo sameeysan basaska waxaan u doonan jirnay dhigta basaska ay wadada noo bixinaysa aan u baahnay بريو هراء واحد بس أسمى نهيسن ونجين كلي يمكن هذه أنا أقول فرحسن هاي وطبعا لو سمية بس أسكع سلام عليكم ومركي ugu horeysay ee iskaashatada gaadiidleyda ka dhex adeegta magaalada gudaheeda ay markaasi xaafadaasi Sheedeer si rasmi ah uga hawl bilaabayaan iyagoo oo sanadkan bilowgeedii gaar ahaan bishii Abriil ay basasku ka shaqo bilaabeen magaalada Boorama in ay ka hawl galaan oo ay markaasi meelo kala durdurugsan oo magaalada geeyaan iyadoo magaalada Boorama ay marba marka ka sii dambaysa aad u sii ballaaranayso Xasan Ciise shabakada wararka Sela News Boorama